muuqaalka aragtida boodh laga mabsuudo milicsiga jalleecad indhuhu muhdaan oo ma dhaafaan runtii meydhjad baa kula diyaaraa bulshee hamoogaan shirkadda daabacadda casriga ee meydhjad oo inila diyaara adeeg degdeg siimo daacad qurux tayo iyo hufnaanba leh saax xarumaha ay shirkaddu ku leedahay magaalada Hargeysa gaar ahaan xaafadaha Jigjiga yar iyo sidoo kale agagaarka jeelka weyn ee magaalada Hargeysa faahfaahin intaasi dheerna kala xidhiid lambarada shacabkaawe way deeqa tafadal walaal soo dhawow wandhawe ma sha Allah bismillaah magacaygu waa deeqa maxamed muuse kaasi maxamuud mahaw maxamed deeqa maxamed muuse waxaan ku tartamayaa maasakaalsa hooyada oo la dhahdo amaan hooyo maasadan waxaan curiyay bishii maasadan waxaan la dhahdaa amaan hooyo waxaan curiyay bishii 11/2019 waxay ku curatay qiso aan maalin daawaday qisadaasi waxay ka hadlaysay hooyo inankeeda xumeeyay hooyadaasi inankeeda waxay ku korisay amba ku soo barbaarisay yarantiisii nolol aad u adag hooyadaasi waxay haysay qeyrada aabihii waxa uu dhintay isagoo yar agoonba ku soo koray hooyadii waxay ka shaqayn jirtay shaqooyinka hoose ee suuqa iyo xamaaltika ahayd suuqay ka shaqayn jirtay hooyadii way soo barbaarisay waxay ka bixisay waxbarashadii heer jaamacadeed bay gaarsiisay ilaa jaamacadiisii way ka bixisay markii wiilku jaamacadii gaadhay ayaa buu dibadda aan rabaa inaad ii dirtin dibaddii u dirtay lacag xamaalaha u samaatay way dirtay wiilkii hooyadii markii ay dibadda ugu dirtay ayaaba ugu dambeeyay xiriir dambe oo waalidkii la soo hadlo ama hooyadii uu soo xiriiriyo hooyadii waxa aad bay ugu murugootay meel ay kala soo hadasho way garan weydii bartiibu hooyadii ku ilaaway ninkii uu dhamay waxbarashadii ganacsadu noqday xoolo badan buu yeeshay isagoo magaalada jeexo maqan tahay ayuu soo dhaafay halkii ay hooyadii ku nooleed magaalo u dhow yimiday halkii ayuu ganacsi ka samaystay waxa uu bartiibu ganacsi ka samaystay nin weyn buu noqday xoolo badan buu tabacday shaqaale aad u badan buu haystay magac buu yeeshay dadkoo dhan waxay lacagtiisa ay ku ixtiraamayeen hooyadiina mar dambe ma soo xidhiidhin bartii buulkii ay ku noolad ay kaga yimid ku hayn jirtay waxa dhacday magaaladii ay isagoo maalin ilaahay wuxuu ilaahay xidhiidhkii ilaahay ka dhaxeeyay xidhiidhkii qaraabadiisa oo dhan ka dhaxeeyay isagoo bartiiska mashquulsan maalin sheekh baa u yimaaday wuxuu ku war waxaa tinin ilaahay xoolo tacbay oo xoolo ilaahay siiyay maxaad u cibaadeysan weydo xoolaaga sadaqa barku bixiso ku cibaadeyso xoolahaaga warmay buu xoolahan aniga shaqaystay ninkii waxba uu ka qaadan waayay sheekhu iskaga tagay sheekhu iskaga tagay maalin dambe ayuu sheekhi arkay islaan yar oo buul yar ku jirta oo indhala oo aan waali cid u shaqayso iyo ubad midna haysan hooyadaas oo barta ku balbalsan aad buu jaarkii u wanaxay maxaad qofkan wax ugu qaban weyday meedi waalidkeedii hal wiil badashay halkii wiilkii bari waa ugu dambeysay magaciisii wixii waa loo sheego wuxuu noqday ninkii maalinkii waanay ganacsada ahaa ninkii maalin dambe uu soo noqday wuxuu ku yiri waan waxaad ilowday muhiimadii noloshaada maya buu muhiimadii noloshaada waan ka taaganahay waan ma wadi ilowday buu dadkan kuma jecla maya buu waa la jecel aniga halkan baa laga jecel qof kale oo jecel ma jiraba waa tan arag cidii qof walba uu yeedha shaqaalihiisa qaar kamid ah mudane hadallo wadan xariis ku yiraahdaan adoo ixtiraamina jecel u muujinayana laakiin waxaas waxba ma habo ku yiri qof qura dhab ku jecel qofkina waa soo halays wuxuu yiri maya aniga hooyadaba maya buu dadkan baa jecel wuxuu ku yiri ama bari ay tijaabinayna dadkan ku ixtiraamaan oo ay ku jecel yihiin in kale way buu yiri wuxuu subaxdii buu yimaadii wuxuu soo qaaday naxash bahalka meedka lagu qaado wuxuu ku yiri meed iska dhig oo may bahalka ku jiifso meedkii ayuu iska dhig waayahay buu magaaladan ku soo wareejinaya buu dadkii lacagtaada wax alaali waxa doontid kugu qabanay ku ixtiraami ayaan mid walba ku geynay adigu ma hadlaysid waxaan idhaahdo bartaa ka dhageyso way buu halkii buu ayaa manaxashii ku qaaday dhowr nin buu ku qaada magaalada ku soo wareejiyay waa ninkii hebel alla muu dhintay haa uu dhinto maanta hadii lacagtiisaas uu lahaayo dhan wuxuu waan ku wareejinaya qofka hadii maanta aad meedka cagihiisa taabataan uu soo noolaanaya hantidu leeyahayna badh buu idka siinaya
adu dadkii uu ku soo wareejinayaa marka way diidayaan xarnayaan midna dhimasho marna ma qaadanano qofkii lugiisa taabtaana uu dhimanay way wada diidayaan adigu dambin hooyadii buu keenayaa buulkii yaraa ayuu ku soo gelinaa xarnay wiilkan waa wiilkaaga intaas sano ka hor ka tagay oo hadaad maanta uu dhintay hadaad cagiisa qabsatid isagu uu soo noolaanay adna wad dhimanaysaa haye bay tir hooyadu way dhalaadahay cagihiisa hooyay ka xayo cagihiisa igeebay tir sidaan anigu dhinto isagu noolaad cagiisa taabsi maansidan waxay ku curatay sababtaas halkaan ka beermiyo hooyadii calooshiyo igu haysay beerkaay hawadii ku noolayd haaftii siisay hagar la'aan midii hooyii ahaatay halbuulaheeda dhiigana haytii tidhiye hal filaahaydey halkaan markaan ku jirayeen hooyo kugu dhex noolaa waad hilmaantay jiifkiyo hurdo raaxo loo wacan harimiyo xiraadiyo hunguri waxa la quutaba hooyo waad ka soonto hilbaha dhamaadeen hawsha fashu ku marsiyo hadba dhanu dhacaagii halicii ku maray iyo hoogaad jiidhaysoo idil hal mar baad hilmaanto farxada daraadeed dhoolaha caddayso hadalkiiyo dhawaaqaygu hambaliyo ku waday hadaaq mooyaane anoon hadal baran hawraarta wanaagsan adaa igu habay hufan hodan iyo magacani habboon adaa ii huray hayaanka dheere nolosha heerkii dhalaanimiyo halkaan maanta marayaba hintaaqa maan arag habeenna murugiyo ma dareemi gaajaba halkii qiirkii joogaan hoos ugama dhicin weli haddaad adigu hooyooy hareertay ka maqan tahay hadalkaagu iga dheeriyey arooryada horeetana hadba dhaayuhu ku qabanayn horta farxaddu idilkeed habeen iguma hoyateen haadka nolosha aan hayo waan habaabilaayo heer sare ma gaadheen hawlaha adduunyana hal baan ku noqon laa allah waaxidkaaye hooyo wacan isiiyaa hal waxaan la odhan karin tirana lagu habeynayn ma hadaan u celiyaa hogaankii noloshaay hooyadii hayeenkiiyo hadyadii ahaydee horaadkeedii siisaay habtii ay korisaay laabteeda waasica hurdataan ku ladeeyay hooyo goortay odhanayso naftatay ku faraxdaay haddiiba aadami xaq igu leeyahay saddex mar oo hanba lahayn taanu ixsaan falaayay inta dunida weheliyo hoggaan igu tahaye hooy ku wada nool dhahay allah baan baryayaa inaan baari ku noqon hadda nolosha kaa qaadi qaadur kaa fogeeye hooyo markaa socdaashee hooygii dhabta ahaa sahay aad u wadatee hoggaad ku nagaadi su'aaluhu fudaydiyo habka magacayga kuu noqay rabbi godka raaxiyo janno kaaga yeeladi hooyay maalintaa weyn akhriyo wanaageed hooygii jannada udug halka aan ku kulanno hooyo igu haw abid deeqa waayay guddidan kugu wareejinaya aniguna kalna way jiraan inta kala soo kacaan markaa fadhiisato natiijadu waxa ka dambeeyay natiijadu waxa ka dambeeyay iska fadhiiso deeqa fasaxan tahay magaceedii maxaa deeqa hay deeqa maxaa insha Allah